dhinaca miisaaniyadda ama maaliyadda markaynu eegno deegaankeenu laba meelood baynu ka helnaa miisaaniyadda aynu ku fulinayno ajendayaasheena horumarineed. midda koowaad waa kabista aynu ka helno dowladda dhexe, khasnada dhexe ee dowladda dhexe aynu ka helno. qaybta kalena waa dakhliga aynu inagu deegaan ahaan la soo baxno, oo waagi hore hal dakhli ahaan jiro deegaanka uu kan local revenue-ga ahaan jiray, hadda laakiinse qayb ay ku soo korodhay ah dakhliga wadaagga ee dowladda dhexe la wadaagno. yacni howlgallada dhaqaale ee ay ka wado deegaanka dhexdiisa dakhliga ka soo baxa wadaag ba hadda eegayaa waa la wadaagaa oo 50% inagu inoo soo laabtaa. waagi hore muddo 3 sano ka hor aan muuse jirin. marka deegaankeenu waxaan dhihi karaa miisaaniyadda aynu sanad kasta wax ku qorshayno labada ilood bay ka yimaadaan. federaalku wuxuu inoo aynu ka helno iyo dakhligeenu inagu la soo baxay aynu wadaagno la isku daray. labadaas sanad walba intii la qorsheeyo yaa qorshihii horumarineed ee sanadka iyo nidaamka dawliga ee jiray qaab dhismeedka jira sidii uu u shaqayn lahaa ee lagu maalgeliyaa. haddaynu in yar milicsano muddada 4 sano ah miisaaniyadda guud ee deegaankani sanad walba la ansixiyo ee baarlamaanku ansixiyo sanadkii 2010 waxay ahayd 12 bilyan. 12 bilyan baa sanadkii 2010 taariikhda tirsiga Itoobiya. sanadkan hadda aynu ku jirnay 2015 kana markaan waad ka arkaysan tabeelahan ay ku qoran tahay waa 31 bilyan. isbedelkaasi wuxuu ka kala yimid kabista federaalka aynu ka helno oo la dhihi karo 4 sano ama 5 sano ugu dambeysay isbedel fiican bay yar lahayd, iyo dakhliga deegaanka uu soo saaro waa asna si fiican sare uga kacay. marka miisaaniyadda deegaanka dhinaca budgetka markii laga eego deegaankan sanad kasta hadda sanadka aynu u qorshayno aynu ku maamulno ajendayaasha horumarineed in lagaga midho dhaliyo loo hayo waa lacagta budgetkaasi 31 bilyan hadda maraya. isbedelka muddada 4 sano aan inta ay ku yimid weeyaan. sida caadiga miisaaniyadda sanadka la qorsheynayo laba qaybood oo waaweyn bay u kala jabtaa. qayb waa miisaaniyadda loogu talagalay ka shaqaysiinta qaab dhismeedka dawliga ah ee jiray, waa miisaaniyadda caadiga la yiraahdo oo isugu jirta mushaar iyo howlfulin. qaybna waa miisaaniyadda inta ka soo baaqiga ah oo loogu talagalay in lagu fuliyo mashaariicda socota. mashaariicda markaan ka hadlayno laga soo bilaabo wadooyinka laamiga quruxda badan ee jigjiga laga dhisay, biyo gelmaha socda, ilaa iyo tababarka xafiiska laga qabanayo ee lagu dhisayo maxaan ku dhahay awoodda wax qabaneed ama awoodda fulineed ee shaqaalaha gacanta ku haya ilaa iyo wacyigelinta waxaas oo dhan la isku daray mashaariic baa la yiraahdaa. marka sanadba sanadka ka sii dambeeya waxaa sii ururay waxaa sii kordhaya qaab dhismeedka dawladda. adeeg kasta oo samayso kharash joogto aan wala soo kordhaya. ka soo qaad tusaale ahaan haddaad xarun caafimaad samayso, adeeg biyo aad samayso, adeeg maxaan ku dhahaa caafimaad aad samayso, dhismihiisu marka koowaad investment cusub uu kaaga baahan yahay sida aad u hirgelin lahayd, hadhowna wuxuu kaaga baahnaan doonaa kasii shaqayntiisa. marka waxaa isgarab socda miisaaniyadda caadiga ah ama recurrent budgetka oo sanad walba sii koraysa iyo miisaaniyaddii aad u haysay inaad sanad walba aad wax cusub ku qabato ama wax sii qabyo ah aad kusii qabyo tirto oo iyaduna sii dib u sii yar durkaysa. marka muddada 4 sano ah hadda intii isbedelka ka bacdi ahayd haddaan si u dhowro miisaaniyadda dakhliga deegaanku waxaan dhihi karaa celcelis deegaanku yani kabista federaalka ka helayo iyo miisaaniyaddu asagu soo saarayo sanadkii 2010 boqolkiiba 17 buu deegaankan isku filaa miisaaniyaddiisa, boqolkiiba 17 baa soo saaran jiray. sanadkan 2015 qorshaha hadda inuu yaala waa boqolkiiba 28 inuu soo saarto asagu, oo ku tiirsanaanshaha aan ku tiirsanahay khasnada dhexe ee federaalka sanad walba inay hoos inooga dhacdo oo inuu ka deegaan ahaan isku filaanshahan aan kor u qaadno qorshe weeyaan. kabista federaalka hadda waxay maraysaa boqolkiiba 72%, boqolkiiba 28 oo miisaaniyadda inuu kharashka inuu la soo baxno. miisaaniyadda caadiga ihi sanadkii 2010 waxay maraysay boqolkiiba 39 ay maraysay. sanadkan 2015 kana waxay maraysaa boqolkiiba 52. taas waxay tusaysaa miisaaniyadda caadiga inay way kordhaysaa, miisaaniyadda mashaariicda lagu fulinayana dib ay u koranaysaa. boqolkiiba 48 baan miisaaniyadda aan qabanay mashaariic lagu fulin karaa oo isugu jira wax cusub oo sanadka la qorsheynayo
iyo wax muddo soo socday intooda badan sanadkan soo arki doonaan waxay u badan yihiin miisaaniyad sii socotay oo labadii sano ugu dambeysay waxaan dhihi karaa mashaariic cusub markii laga taga sektarro yar oo kooban oo toos federaalka miisaaniyad uga hela waxa aynu hayno haynteen inta badan waxaa lagala horjeedsanayay uun dhammaystirka ama qabyatirka maxaan ku dhahay mashaariicdii sii socotay guud ahaan marka haddaan soo koobno deegaanka dakhligiisu waxaa la dhihi karaa boqolkiiba 70% yuu kordhay muddada 4 sano ah dhinac markii loo eego korarka uu dakhligu sameeyay muddada 4 sano iyo 20kii sano ee dhowray xawli ballaaran ku koray si kale haddaan hadalka u dhigo sanadkii 2010kii deegaanka dakhligiisu wuxuu ahaa 2.5 bilyan soo saarto sanadka 2015 kana 9 bilyan weeyaan marka farqiga halkaas aad ka dareemaysaa of course miisaaniyadda dakhliga iyo miisaaniyadda aynu helayna way isku xidhan yihiin miisaaniyadda qayb ka mid ah ayadana dib loo sii canshuurayo of course kobaca dhaqaalahuna qayb uu ka yahay marka guud ahaan miisaaniyadda uu deegaanku maamulo ee adeegga dawliga ee joogtada ah ee qaab dhismeedkan dawliga iyo maamulka ee joogtada lagu wado labada ilood ee midna kabista federaalka aan ka helna midna dakhliga inaga aynu soo saarana ayay salka ku haysaa miisaaniyadda caadigiihi muddada 4 sano asaasay u kordhaysay muddada hadda 4 sano ah jirtayna horumarka ugu ballaaran ee dhihi karo xukuumaddan waxay xaqiijisay waxa weeyaan fiscal access in si xawli ah loo kordhiyay yani miisaaniyadda loo qabanayo waxbarashada sanadkii 2010kii ahayd 100 milyan buu ahaa xafiiska ama sektarka waxbarashada miisaaniyadda loo qabanayo haddana 500 milyan bay ku dhowdahay sektarka biyuhu maadaama ay baahida ugu daran ay tahay in aad loogu celcelin jiray ahmiyadda koowaad waa biyo la dhihi jiray haddana actually miisaaniyadda galaysa markaad u fiirsato sidaa mayna ahayn muddada 4 sano waxaan dhihi karaa sektarka biyaha miisaaniyadda galaysa iyo waxqabadkiisa xagga xaqiijinta targetska loo baahnaa kor bay u kaceen يعني 1 bilyan ugu badnaan hadda 1.5 bilyan ee sanadkii galaysa jidadka kale waad aragteen waa iyadana miisaaniyadda galaysa gaar ahaan jidadka yani inkastoo deegaankeenu deegaanada ugu hooseeya ku jiray haddana meelaha wuxuu ka mid ahaa miisaaniyadda ugu yar aan la gelin jirin kaabayaasha dhaqaalaha markii la eego intii hadda xukuumaddan 4 sano ahi meelaha miisaaniyadda fiican la geliyay buu ka mid ahaa waxbarashada caafimaadka inta isbitaal ee la dhisay iyo matqana iyo dabcan xoogaheeda waad helayseen marka guud ahaan markaan soo koobo waxaan isku garaboodnaa inaynu isu dheelitiro kow baahida dhaqaale ee aynu u baahannahay inaynu ku xaqiijino ajendayaasheena horumarineed iyo haynteena dhaqaale aynu dakhliga seen ula soo bixi lahayn inaynu labada isu balance gareyno expenditure-ki iyo dakhliga inaynu isu balance gareyno haddii aan soo koobo jihooyinka istiraatiijiyadeed ee miisaaniyadda gaar ahaan sanadka 2015 sidii tilmaanta meesha ka soo baxday xaggee xoogga la saaray labada koobaad ahmiyadda koobaad waxaa la siiyay dhamaystirka mashaariicdii socotay muddada 4 sano ah over commitment baa yar jiray oo mashaariic fara badan oo hayntii dhaqaale markaa la hayay lagu dabooli karin ayaa la dhagax dhigay qaarkoodna shaqadooda la bilaabay muddada hadda sanadkii 2014 2015 waxaa go'aan la isla qaatay in mashaariicdii qabyada ahayd ee la bilaabay 3 sano hore ama 2 sano ee dhaaftay 4 sano ee dhaaftay in la dhamaystiro waxaa kaloo iyadana la isla qaatay horumarinta waxbarashada si يعني iyo barnaamijka horumarinta waxbarashada iyo barnaamijka xirfadaha farsamada sababtoo ah waxbarashadu jiil isku filan oo dhaqaale ahaan isku filan oo la jaan qaadi kara wacyigan hadda lagu jiro si loo helo waa in waxbarasho casri ah helaan marka waxbarashaduna meelaha ahmiyadda la siiyay bay ka mid tahay horumarinta caafimaadka iyo nadaafadda waxaa kaloo iyada jirta saameynta abaaraha iyo daadadka marmarka qaarkood ay leeyihiin ama cudurrada safmarka ay dhacay leeyihiin u gaqsigeedu meelaha loo matqana soo jeeday bay ka mid tahay kor u qaadida wax soo saarka kaabayaasha wadooyinka kuwa biyaha shaqo abuurka xoojinta cadaaladda amniga iyo nidaamka dawlad wanaagga dhisidda nidaamka dawladeed ama institutional building-ga kor u qaadida iyo awoodsiinta haweenka iyo carruurta la dagaalanka musuqa iyo kor u qaadida isla xisaabtanka waxyaalaha sanadkan ahmiyadda miisaaniyadeed la siiyey ee budgetkan hadda qorshaysani in natiijo laga keenay laga tixgeliyay buu ka mid yahay